Asalaamu calaykum asxaabtay sharafta la sidee tihiin aan weydii wanaagsanahay subax wanaagsan subax ay noo tahay haddaan soo kacay kadibna shaax yar baan soo samaystay shaaxa waxaan kasoo samaystay biyo kulul liin dhanaan iyo green tea soo shaaxii halkaan lasoo fadhiisto cabaaya weliba aniga waxa kulul iskuma fiicnin laakiin waan isku qasbayo aniga shaaxa iska kabkabanaya soo warbaa idinka dambeeya idinka dabageeyay waxaa dhacday rabadaantii iyo maalmihii imtixaanka ku jiray iyo maalmihii ka dambeeyay oo dhan waxaan cunayay macmacaan aad u badan xalwad hariisad waxyaabo wadankii la iga keenay aad macmacaan too much aan isku gurayay marka waxaa dhacday 4 kiilo inay ugu darsoontay miisaankeygii waliba aniga dadka miisaanku sida fudud ku fuula ma ihi laakiin macmacaankaas habeenkii cuni jiray waan ku seexan jiray kiya igu sameeyay inuu miisaan isaaro soo waxaan rabaa inaan 4 kiilo aan iska dejiyo insha Allah soo si aan 4 kiilo iskaga dejiyo horeyba diet kama bilaabayo marka hore waxaan rabaa inaan nolosheyda aan yara bedelo 5 cisho 5taas cisho waxaan sameynayaa 2 waqti baan cunto cunayaa markaan soo tooso 10 meelahaas iyo galabnimadkii 5 galabnimo 2 waqti oo kaliya taa cunto cunayaa cunto caadi baan cunayaa kaliya waxaan iska ilaalinayaa wixii macmacaan iyo qashin ahaay oo dhan waxaan kaloo rabaa inaan sameeyo jimicsi sida xariga boodbood haddana baaskiilad haddana socod inaan ku daro nolosheyda soo jirhkaygii oo 5 maalin la qabsaday gaajadii ilaa 2 waqti oo kaliya markaa cuntada habeenkii oo dhan baa gaajoonaysa oo gaajadii la qabsaday jimicsigii la qabsaday macmacaan la'aantii la qabsaday kadib baan rabaa inaan diet ka bilaabo marka ma dhow toole diet-ka wuu ii fududaanayaa sababtoo ah base-kii hoose aan iska soo dhisay soo markaasaan gali doonaa insha Allah diet soo hadda waxaan sameeyay shaax baan cabay kadibna waxaan sameeyay xariga boodbood waxaan ciyaaray 400 oo jeer baan ka jarjaray xariga boodboodka kadibna jikadaan soo galay waxaan rabaa inaan sameeyo quraacdii aan reerka u sameeyo soo quraacdan saaka sameynayo waxa waaye laxoox soo laxooxda waxaan ka sameeyay ahayd 1 koob oo boorashka madow ah 2 koob oo daqiiq ah wax yar oo fixisa ah wax yar oo milix ah iyo waxaan ku qasay biyo diiran intii mashiinka isla galiyay kadibna waan isku soo qasay marka isku soo qasmatay waa kaas bileed aan ku daboolay geeskaas iska dhigay ilaa 2 saacadood aan sugayaa si fiican ay igu soo faxdo soo intii ay soo faxiso laxooxda amba cajiinku waxaan rabaa muqmada halkaan igu jirta inaan hagaajisto muqmadan hooyadii macaan baa ii soo dirtay jazakallahu khair baan ku leeyahay hooyo inta muqmadan macaan ka badan la ii soo dirtay marka muqmada waxaan rabaa inaan quraaradaas ku shubo muqmada anaga waxaan ku cunaa timir maxawish ah marka timirtii hadda u sameynayaa marka waxaan soo qaatay nus kiilo timir ah timirtiyan madeebadan ku soo wareejisanayaa timirtana wax weeye indhaha iyo maxaa la dhahaa iyo laftaba aan ka dhili doona insha Allah saa u jeedaanba marka intaan timirta maxawish ka dhigo waa timirtii iyo muqmadii aan quraarada aan isugu geyn doona insha Allah marka kaas hadda timirtii hadda laftii aan ka dhilayaa indhihii ma fahanteen midda kale waxaan ka codsanayaa fiidiyoga walaalayaal like-ta ii saara waa i daawanaysaan like ma saarisaane like-ta lacagna idinku qoraysay like-ta igu caawi like-ta aniga wax badan bay ii taraysaa fiidiyogeyga daawashada u siyaadinaysaa ma fahanteen midda kale asxaabtiina la sii share gareeyo fiidiyoga si asxaab sidiinoo kale u qurux badan ay igu soo xidhmaan aan u helo soo timirtii markii aan soo wada dhilay kadib waxaan sameeyay waxaan ku soo daray subag yar iyo wax yar oo filfil ah kadib timirtii baa subag iyo filfishiyan ku xashayaa gacmahayga yar raaya masaakiinta maanta nus kiilo timir bay xashayaan soo jeedaan baanay timirta u xashtaa loona xashtaa fahanteen soo timirtii markii aan dhowr daqiiqadood soo xashayay saanay ku soo baxday soo xashtaankiisa ugu soo dhameeyay marka waxaan soo qaatay blade timirtii ma hadda kuuskuusaya ilaa timirtii sidana quraarada kuma dhexridi karaayo waa in timirtii shaqada u sameeysid soo timirtii saa u jeedaan baa u kuuskuusaya midda kale walaalayaal anigu channelkayga waxaan jeclahay inaan fiidiyooyo badan oo waxtar la idin soo geliyo laakiin mushkilad waxay ka jirtaa routine markaan soo geliyay bas ay fiirsanaysiin hadda wax kale soo geliya mabala i daawanayo soo waa su'aal routine kaliya miyaa rabtaan maxaa rabtaan fiidiyooyo noocee rabtaan aniga muhiim waxa idin rabtiin inaan idin soo geliyo because waxaan rabaa hadaan soo geliyo la daawanaynin khasaare waaye marka commentiga igu soo sheega nooca fiidiyooyada aad rabtiin yaa soo kaas waxa waaye timirtii aan kuuskuusaya timirtan aan sameynayay intaan dhilayay intaan
calcashayay intaan kuuskuusayay muddo saacaday igu qaadatay ma fahanteen idinka laakiinse wax yar baa idinla muuqataa ilan fiidiyowga bobsiisaan ku furay soo timirtii markii aan soo wada kuuskuusay oo kuuskuusitaankii aan usoo dhammaystiray hadda waxa waaye muqmadii iyo timirtii aan isku soo dhex shubayaa soo qureeradii aan soo qaatay muqmad baa ku shubtay kadibna timir baan dhexda u geliyey haddana muqmad kale aan ku shubay haddana timir kale aan korka ka saaray waxaa la dhahaa muqmad timir si madhow toole la isugu cuno markaad malqacada saa usoo dartid timir iyo muqmad isla socota ay kuugu soo raacdo marka waa kaasa waxaa waaye saasaan usoo diyaarsaday muqmadii ma fahanteen gaari iska dhig yaa caajiska iska dhaaf waxaa waaye maalin way kaa jajabnaan kartaa laakiin maalin kasta yaysan kaa jajabnaanin kor isku soo qaad howlaha kaa baylahsan waxaa waaye hagaajiso waxaa waaye ani maalmahan daalanahay oo kale amba ay ka jajaban tahay oo aan dareemeynin energy haysanin waxaa waaye waxaan sameeyaa quraan baan shitaa markaan dareemaba inaanan energy haysaninba albaqaraan shitaa ma fahanteen si aan energy u helo xed salaadan ku duceysta waxaan dhahaa ilaahayo maanta energy waa iga yaryahay firfircooni igeli oo caajiskii waxaa iga dulqaad kadib wallaahi been ma idin sheegayay markiiba waxaan dareemaa anigoo firfircooni dareemaya kadib howlahayga adduunkan qabsada marka idinkuna haddaa saas u yaraa caajisantihiin oo kale waxawaaye salaad yara gal 2 ragcadood duceyso quraan shido albaqara guriga iskaga shid kadib adaa maalin walba sidaa firfircooni ku dareemeysid soo waxawaaye maqligiyaan dabka soo saaray amba daawihii canjeero dubow baan soo galay canjeeradii aan dubayaa canjeerada yareed waxaa waaye aan hadda qasnay waxa waaye laxooxda quruxda badan leh baa kasoo baxday ma ujeedaan laxooxda quruxda badan aan soo dubay soo waa kaasa yaa soo ma shidna laxooxdeed walaalayaalo soo waxa waaye laxooxdii markaan dubitaanka usoo dhameeyey qaybteedii aan soo ritay husbandkaygu waxaa waaye wuxuu igu yiraahday waxaa duuduubay sidaan ima sugi karaayo waa gaajoona qaybteeda isiiso qaybtiisiyaan gooni u riday qaybteedina waa aniga hadda idin duubaayo soo waa kana waxa waaye halkana 3 bool waxaa kusoo ritay halkaana waxaan kusoo ritay muqmadii oo aan kasoo miiray kasoo dhalaaliyey subagii iyo timir yar halkaana shaax yara igu jiro dee intan baa hadda ku quraacanaya waa kana waxa weeye muqmadii baan ku ridanayaa iyo timirtii laxooxdii shaax baan ku darsan dee waan cuni doonaa insha allah soo maanta fiidiyowga intana idinku eekeynayaa beryahan marti ay la joogtay saasaan fiidiyo idinku soo duubi waayey waa soo noqday insha allah fiidiyo fiican oo idiin soo wada iga warhaya dee waa kaasa fiidiyowga intan ku eegyahay intan fiidiyowga ku xiga ka kulmayno waxaan idinkaga tagayaa maca salaama fi amaanillah bye bye